ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Key ayaa maanta gudoomiyay caleemasaarka rasmiga ah ee cutubka ilaalada qaramada midoobay ciidan u dhisan difaaca lana xil saaray ilaalinta shaqaalaha qaramada midoobay iyo waliba dhismayaashooda ku yaala magaalada Muqdisho kadib munaasabad aad u ballaaran oo lagu qabtay maanta gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo lagu shaacinayay howlgal ay ka bilaabayaan ciidamadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiil ka socotay qaramada midoobay iyo waliba wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya cutubka ilaalada qaramada midoobay wuxuu ka kooban yahay 410 ciidan oo ay bixisay xogaga difaaca shacabka Uganda cutubka ilaalada oo hogaaminayo taliye Ugandesa waxay mas'uuliyadooda hoos imaanaysaa mas'uulka ugu magacaaban qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Key wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Key oo madasha ugu horreyn ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay muhiim u tahay qaramada midoobay isagoo sheegay inay guud ahaan anficin doonto dalka Soomaaliya. I'm very pleased also that the UPDF's commander